waxaan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha xilliyadan oo kale idiin soo baahino waxaanu kusoo qaadan doonaa Arsenal oo xidigii ugu horeeyay suuqa kala wareegtay Manchester iyo Dortmund oo ka wada heshiiyay Sancho iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ee maanta suuqa kala iibsiga ayaan kusoo qaadan doonaa barsamada iyo kaamiradu waa Shukri Cabdi iyo Cabdiqaadir Xuseen ayaan ayaadeen ku bilaabana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa suuqa laacibkii aadka ay kaga doonaysay kooxda Borussia Dortmund lagu magacaabo ninka lagu magacaabo Jadon Sancho wararku ay sheegayaan in hadda labada koox ay ka heshiiyeen laacibka ayaa xitaa warar u dhacay ay sheegayaan in lambarku ku xiran doono garoonka Old Trafford hadda baa loo sii shaaciyo oo banaankaas loo sii dhigay laacibku asiga dalbada leeyahay lambarkan inuu xirto ama hadii Manchester United uu ku sii beerayo lambarkaas uu ku xiranayo kooxdu ay u ogolaatay laacibka lambarkaas wata waxa ay sheegayaan wararku in lambarkaas lagu qaadayo asiga lagu sharfay laacibkaasi lagu magacaabo Sancho weligaana Solskjaer heshiiskiisii guuray ama laacibkiisii guuray aad suuqa uu kala soo wareegay waxa ay wararku isii sheegayaan in laacibin kale uu dhaqaaq karayo sida laacibka West Ham dadka dhex kaga ciyaara ninka Declan Rice ninka lagu magacaabo kale sidoo kale Chelsea waxay kalsooni buuxda ku qabtaa leeyahay in helitaanka laacibka kooxdaas Borussia Dortmund Erling Haaland ninka lagu magacaabo kooxda Chelsea laacibkan aad iyo suuq marar badan ay kaga doontay iyada oo kooxaha waaweyn loolan badan ay kala kulantay asaatee kooxaha ayaa badankoodii sugaaray oo qayb ay ka ahayd kooxda kala dhisan Premier League ee Manchester City ayada kaliya ku soo hartay mar walba laacibkan ayada si dhow la socotay hadda Borussia Dortmund laacibku xitaa waxa leeyahay heshiis oo dhacay gaareen kooxda Chelsea iyo sidoo kale Erling Haaland milkiilaha kooxda Chelsea ninka lagu magacaabo Abramovich wuxuu leeyahay si walba inuu ku heli karna laacibkan waa inaynu helnaa lacag hadii ay tahay iyo sidoo kale Borussia Dortmund hadii ay doonayso xitaa in laacibina ay isdhaafsano sidoo kale diyaar ah olanaanay waxa leeyahay Borussia Dortmund hadii laacibkan markale ay isku daydo inay siyaasato Chelsea waxay kaga soo faksanaysaa laacibka in weeriyahan iyo sidoo kale lacag miiska ay soo saarto kooxda Chelsea inka shaxdeedu maalmihii ugu dambeeyay ka caaganaya lagu magacaabo Tom Abraham iyo sidoo kale lacag miiska loo soo saaray Borussia Dortmund sidaasina waxa saarnaa doontaa leeyahay in Haaland kooxdaasi BVB lagu magacaabo ku soo dhaqaaqo laacibkan ayaa waayay qurux badan ku qaatay xilli ciyaareedka 2020 iyadoo oo Borussia Dortmund uu dhaliyay 41 gool 12 kale uu caawiyay 41 kulan uu saftay laacibka Borussia Dortmund laacibkan waxa suuqa aad ku lagu doonayay sidaas qayb ka ah oo waxa weeyaan goolash aad u saalan tahay 41 kulan 41 gool 12 caawi waxa weeyaan hadii xilli ciyaareedka dambe Premier League lagu arko waxaynu sii arki doonaa Chelsea oo dabayo daawan doona Chelsea hadaba isku guuleysanaysa tartanka Champions League oo laacibkan goolinta aad goolashiisu aad u cayiin ama ugu saalantahay oo ku soo biro kooxdan waxay ka dhignaan doontaa kooxda Thomas Tuchel oo ay adag tahay in loo dhawaado yani ama lala tartamo yani horyaalka Premier League sidoo kale tartamada kale ee kooxdu ay ciyaarayso in lagu tartamo kaan doonta leeyahay dhanka kale kooxda Arsenal waxa leeyahay haddaba laacibku guuriyo suuqa kala wareegta marka Mikel Arteta kooxdiisu shaandeen badan uu doonaya xil ciyaareedkan inuu ku sameeyo koox tartamaysa in meesha uu ka soo saaro doonaya laakiin Arsenal laacibina qudoodu ka tagayo isbedel badan ay ka jiri doona garoonka Emirates Stadium xil ciyaareedka dambe waxa macquul ah Arsenal oo adag in la arko hadda waxay la wareegtaa leeyahay oo tijaabo caafimaad u sii maraya maalmaha dhow soo aadan nin ka tirsan ama laacib ka tirsan kooxda Benfica oo magacaabo Nuno Tavares laacibkan daaficu ka ciyaara daaficiisa aad u wanaagsan yahay marka hadda Mikel Arteta laacibkaas uu soo qotay iibsiga hadda uu kala sii wareegaya leeyahay marka Arsenal isbedeladaas ay doonaysaa suuqa iyadoo sidoo kale laacibin kale la xiriirinayo kuwa kale laga dul qaaday laakiin Arsenal hadda laacibkan tijaabada caafimaad u maraya leeyahay 25 sano jirkan Benfica ayaa la xil ciyaareedka 2020 14 kulan uu ciyaaray La Liga waxaana uu 5 kulan uu ka tirsanaa ama 5 kulan qayb uu ka tartanka Liga laacibka marka
waa laacib kubadiisu aad u fiican tahay marka loo eego daafacyada hadda Arsenal ka tirsan oo kale PSG ninka ka tirsan ee Kylian Mbappe lagu magacaabay kooxdu shucaac ku furaya leeyahay laacibku wuxuu doonayaa in la fasaxo oo ku mid adeegaya iyadoo xitaa madaxweynaha kooxdaas Nasser Al Khalifa haddaba wadahadaladiisu gacanta uu ka qabtay oo milkiilayaasha kale ee kooxda ama saraakiisha kale ee kooxda waa laga dulqaadaya ninkan Kylian Mbappe madaxweynaha kooxdaasi ayaa xaaladiisa si dhow la soconaya waqtigan marka waxaana uu doonayaa laacibku inuu ka tago garoonkaasi PSG ku ciyaarto hal xilli ciyaareed oo kaliya oo dhiman 2020 liga laacibkan heshiiskiisu uu dhacaya baaca horta intuu kaga tagi lahaa markii PSG waxa leeyahay laacibka in wada hadallo lala furo oo waxa wanaagsan haddaba laacibku la sii iibiyo si dhaqaale kooxda kaga heshaa leeyahay maanta ayabaas ayaana ugu waaweyn suuqa kala iibsiga tan iyo barnaamijkan kiisa xiga inta ku kulmi doonana amaana Allah